roobab lixaad oo 24 saacadood ay u dambeeyay ka daayay guud ahaan gobolka Saraar ayaa geystay sida la xaqiijiyay dhimashada 3 carruur ah oo kala hawiil iyo 2 hablood deegaanada ay roobabkani ka deen ayaa waxa kamid ah tuulada Tuguba ku taala buurta Buurdhaab oo ah goobta ay carruurtani ku nafwaayeen isla markaana carruurtani ayaa kamid ah qoys dul yaala dooxa Tugub isla markaana uu ku soo rogmaday deegaamadan ay masiibadu ka dhacday ayaa waxa gaaray mas'uuliyiin ay kamid yihiin barasaabka gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali iyo taliyaha qaybta booliiska Jaamac Ibrahim Guudcadde si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanadaas ay carruurtu ku nafwaayeen aabaha dhalay carruurtan oo lagu magacaabo Axmed Ogle Jaamac ayaa xaqiijiyay inay carruurtan saddexda ahi ay geeriyoodeen isla markaana ay hooyadeed iyadana dhaawac culus soo gaadhay kadib markii uu daad ku qaaday asi kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay tan iyo intii ay daaysay raxmadda Eebe roobab noocan oo kale ay geystaan khasaare nafeed isla markaana ay qaadaan dad iyo dunyo محمد آدم درير تيفيق عالمي يا Somali Channel عينبا